adiga iyo saaxiibta maxay idin kala geyn kara? Another one. af carabi ku sheeg halka ay qoraxda u dhacdo. Another one. noo sheeg maalinka kugu farxadda badneed noloshaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. idin lahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan waa saaxiibkiin walaalkiin Aligo. channelka adiga daawanaysaana waa Aligo Production. su'aalaha kaliska ayaan maanta idin wadaa. waxaa marti igu ah Nasra Suraaj. Nasra Maxamuud Dhicis. Nasra Maxamuud Dhicis. soo dhow Nasra. waan ku dhawahay channelka Aligo Production walaalkay waxaan leeyahay waan dhawahay aad u mahadsan tahay waan ku faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaato su'aalaha kaliska su'aalaha kulli aniga waxba kama aqaan kadis baa la yiri hasa hatee waa in adagiin waan filaya marka ilaahay garab galo. Nasra horta su'aalahan waxaan rabaa inaad si daacad ugu jawaabtid maadaama ay kadis yihiin waa iska kaftan. marka waxaan rabaa inaad si daacad ugu jawaabtid. su-aasha ugu horeysa waxay u dhacaysaa sida tan adiga iyo saaxiibta maxay idin kala geyn kara? aniga saaxiibtay rumaadii aniga ay muu maleena inay wax ma kala geeya jiraan hadiiba ay dhacdo inay jiraan wayba qasab tahay in aan sheego wax in kala geyn kara waa inay noqdaan waxyaabo aan ku dhibsado oo ku soo noqnoqdo oo dhibsada oo waxaan ku raadayay in badan hadii aan kala hadlo haddana wixii ay ku dhex jirto aysan ka bixinin inaan halkaas uga haro waa laga yaabaa. waa maasan tahay. su-aasha labaad waxay dhacaysaa af carabi ku sheeg halka ay qoraxda u dhacdo. af carabi ku sheeg halka ay qoraxda u dhacdo. haa qoraxda halkay u dhacdo aniga kulley af carabi يعني مغرب المشربات تصويلات هذا قال دي ده صاحبه مغرب في عربي. انا اقول لي حقيقي قلت وصعد اوكي waa kugu qaadanay noo sheeg maalinka kugu farxadda badneed noloshaada. aniga maalin walba waa iska faraxsanaa alxamdulilah. maalin khaas aad kugu farxadda badneed maalinka maalin kale la barbar dhigaynin sheeg. wallaahi anigu hadda ma jirtaan maalin oo si gooni aan leeyahay maalintaas ay igu farxadda badneed oo xasuustaa ma jirto laakiin maalin walba waa iska faraxsanahay iska jiraan maalmo yar oo dadka soo maro oo xaalad ka yar duwan laakiin farxadeeda badan. farxaddaas waan kuu sii rajeynaa inaan kuu sii badnaato. siyaasiyiinta yaa taageertaa? siyaasiyiinta wallaahi waa su-aal adag. siyaasiyiinta inaad faraha ii geliso tumaan jeclaa laakiin siyaasad inaan galano ma jecleen laakiin haddii ay noqoto inaan siyaasiyiinta aan galo waxaan aad u jeclahay dad fara badan oo aan ka helaa jirta. waxa ugu horeeyo ninka la yiraahdo Farmaajo. meeqa xabaan ka sheegaa? maya hal qof isa ka sheegaysaa siyaasiyiinta yaa ka taageertaa? okay Farmaajaan ka taageeraa. maxaa ku dooratay? wallaahi kulley anigu ahaan buu yaqanciyo waxaan ku taageeray sida oo hab dhaqankiisa iyo waxaan ku raadaya qaabka uu dowladnimadu waxa uu wado inta baan ku jeclahay. haddii ay badihiin uun kuugu dari karaa. may halkaa kaliya u baahnayn. yaa tala u doonataa? tala waa tii alla marka hore ilaahay unbaa tala laga sugaa. bani aadan taladiisana xilli walba waa loo baahan yahay. haddii ay tala noqoto oon tala cid aan weydiista inta badan cid walba igu dhow ayaan weydiiyaa laakiin waxaa si gaar inta badan u weydiiyaa talada saaxiibtay ubax. marka lacag la-aan aada noqoto noloshaada sideed ku maareysaa? bismillah wallaahi madaxa iga xanuun nuurta marka hore lacagta ilama aysan dhalin laakiin markaan jeebkeyga aan ka yar waayay madax xanuun iyo waxyaabaa dareemahaas hata maxay dhahaa su-aasha? markaad lacag la-aan noqoto noloshaada sideed ku maareysaa? see ku maareysaa? wallaahi sina kuma maareeyo laakiin waa maxaan ku rahdaaye waa isdabira adiga run ahaantii waxaan ka dhaadhiciyaa in waxaan yihiin wax la helaya marna la waynaya marna la helaya. okay qaladka ugu weyn ee aad samaysay muxuu yahay? aniga
qaladka ugu weyn oo aan sameeya intaan ku guda jiraa inta aan nooleed intaan noolaa inta soo aqliyaysataan ku dhaha qaladka ugu weyn inaan qof si dhab u jeclaa khalad miyaa aragtaa qalad naftiga ka galeed micnaa qofkiya kaaga baxay miya waxaa ka soo gaaray su-aasha taas baba keen okay ha kugu qaatay dabeecadaha aan wanaagsanayn oo aad is leedahay inaad iska jarto bal inoo sheeg wax inooga sheeg dabeecadaha aan wanaagsanay inaan iska jaro wallaahi waxaa waaye inaan qofkaan markaan arko inuu soo xiriirin waayo in anigana aan ka gooyo taasna aana fiicnayn inta badan taasaan jeclaan lahaa inaan iska gooyo laakiin marba haddaan fiiriyo inuu qofkaan luuqluuqa uu maraayo waxaan karaadaay aan asagaba xaggayga oo soo jirin in anigana jaraan jeclahay marka taa ayaan jeclaan lahaa inaan iska lahaa diyaar goormee kuugu murugo badneed noloshaada inta aan nooleed murugo ah wallaahi horeyaan kuugu sheegay way jiraan in waxyaaba yar oo ay soo maray oo murugo ah laakiin waan ka gudbay wax weyn oo saasad aan dareemi karo adduunka maxaad ugu jeceshahay aniga adduunka waxaan ugu jeclahay inuu waalidkayga inoolaado waalidkaad inay sii noolaadaan allah kuu diista maxaad ka cabsataa aniga waxaan ka cabsadaa wax walba xun waan ka cabsadaa inta badan dhimashada ka cabsadaa geerida intaan lama seegaayo waana la wada sugaysaa laakiin wax walba xun waan ka baqaa waxaan ahay qof oo inta badan waxyaabaha xun iyo waxaasoo dhan baa ka baqaa su-aasha ugu dambeysay ee gabagabada dhakhtar haddii uu ku dhaha hal sana noloshaada ka harsan maxaad ku qabsan lahayd halkaas sana tasbiixda leh haye masaajidka dabadabako hadda maxaa kuu diid maa geshid hadda waa ku jiraa laakiin howlo adduun iyo waxyaabo kale hadda kugu furno ma ogin xilliga maxaa ku rahdaay haddaba ma wada ogin xilliga ay geerideena imaanaysay xilliga waqtigeena uu ku ogyahay daktarka waxaa laga yaaba waxaas waxa inuu asaga iska dhahay ay tahay ilaahay may lacalla haddii waa waxaa ku jirno idil bo iska wax haddii soo maaha ha haddii uu ku dhilaha noloshaada hal sanaa ka harsan daktarka maxaad ku qabsan lahayd halkaas sana waxaa ku qabsan lahaa inaan wax walba oo howlo adduun ku saabsan inaan iska jaro dhankay ilaahay loo jeesto wixii qabyo kaa ma dhamaysteen qabyo ah aqraab socda qabyada baatay waa maasan tahay su-aalaheena kadiska halkaas ay maanta inooga egyihiin waxaa marti igu ahaa nasre maxamuud dhicis nasre suraaj oo saxafiyad weyn ood wada taqaanaana aad ayaad u maasantihiin daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta lahow barnaamijka midka xig ku kulmi doono waa sidaa iyo nabadgelyo